wiilkan dhalinyarada ah ee walaalkeen maslax qiso aad u xanuun badan ayaa ka qabsatay taasoo baraha bulshada Soomaaliyeed aad ka wada aragteen. كذي واحد عنده يقبض أبو كندا كوادي ولا شيء ولكن سووا عفية. Way muuqaal waxa soo daawaday wiilkan walaalkeen maslax hooyadiis oo hadlayso oo dhahayso wiilkayga ay tiri saxaruhu ka shaqeynaya Sacuudi Arabiya gaariyo waday habeen iyo maalin uu shaqeynayay waa wiil aad u shaqeyn jiray waay wiil dhalinyaro Soomaaliyeed gabar uu jeclaaday gabadhii way isguursadeen guurka kadib gabadhii waxay go'aansatay inay Kenya aado halkaas oo uu ku biili jiray lacag u dir jiray isbuuc walba bil walba lacag $10,000 ah 30 kun ku gaarayso way qiyaantay lacagtii wiilkan dhalinyarada u dirayay leen Canada ku gadatay waaye sida wararka ku soo akhriyay yani muuqaalada qaar ku soo arkay marka horta marka maqashid leen la gatay Canada iyo Mareykanka waa hal leen kaliya la gataa leen kale oo agadan kartid lacag ku bixin kartid ma jiro halkan leen waa fraud waa qiyaano oo dawladda Canada dii loo sheego gabadhaas dhigta laga soo qabanayaa meesha ay ka timid loo cilinayaa marka ummadda Soomaaliyeed talaabadaas ma qaadnaa mise ma qaadno laakiin waqti xaadirkan gabadhaas anaga xanoo dambayso wiilkan Soomaaliyeed ee maslax oo had wiilal dhalinyaro ah ayuu soo taagan timihii si nadiif ah looga soo jaray oo labisan waa arkayay marka waxa leenahay dhalinyaradaas la soo xiriir leenahay dadkeena North America iyo Europe iyo kala daadsan wiilkaas maanta garab uu nooga baahan yahay maalinba qofba macna masiibada ma ogtahay maalinba qof ay qabsataa oo qof masiibad doonto oo faraha la galo way yartahay ma jirtaba marka wiilkan wiil qoys rabay inuu dhisto oo u diyaar garoobay gabadhii guursaday iska faraxsan iska shaqeysanayo ahay hal mar ayuu wiilkii maskaxiyan soo noqday markuu ogaaday gabadhii khiyaanada ay sameysay gabadha dib ugu soo laabano gabadha leenkan ay gadatay oo Canada ay ku timid waa hal leen way kaliya leen kale oo laga timi jiro leenka ay gadatay ayaa wuxuu yahay nin Canada joogo ayay lacag siisay si xaaskiga way ahaan uu Canada ku keeno qisooyinkan Soomaalida aad u sameeysa ogaada Soomaalida Mareykanka iyo Canada joogto arrimaha noocan oo kale aad u sameeyaan in guur beenbeenay ah la sameeyo sawirro la isla galgalo oo dawladda Canada laga dhaadhiciyo qoftan waa xaaskiga anigana Canadian dhalada ahay sidaas awgeed Kenya aadaya safaaradda Canada ee Kenya ku taalo murun ma gelin karto markii qof passport Canada uu haysto uu dhaho xaaskiga waatan cadeyntu waatan markii gabadhaas khiyaano sameysay khiyaano qaran kaligiis ma aha markuu ku faraxsanahay horta qisada wiilkan in loo soo bandhigo oo banaanka imaato gabadha haday daawanayso muuqaalkayga daawanayso waxa leeyahay hal wada ku banaan walaalay ummadda soo hor fariiso ee dhibka dhacay iyo sababta waxaan u sameysay runta ka sheeg ee toos ummadda soo hor fariiso